dawaaradaha ay baabuurta ku kala wareegaan. Inaad baabuurka ku soo wareejiso dawaaraha ama isgoyska kala wareega ah waa mid aad u fudud. haddaba waxaan cashirkan ku baran doonaa sida aad ula macaamiloon lahayd wadooyinka mashquulka badan ee dawaaradaha ama isgoysyada sida loo yaqaanaba. dawaaradaha ama kala wareegyada qaarkood waxay leeyihiin jihooyin badan oo laga soo galo, sidaasi oo kale waxay leeyihiin jihooyin badan oo laga baxo. kala wareegga ama dawaaradda waxaa loo qaybiyey inay gawaarida ku kala wareegaan. isku socodka gawaarida waxa ay raacayaan sida ay saacadda u samaysan tahay oo kale. baabuurta doonaysa inay galaan kala wareegga waddada waa inay mudnaanta siiyaan gawaarida ku jirta waddada kana imaanaya dhanka midigta. sida caadiga ah dawaaradaha ama kala wareegyada qaarkood waxaa ku yaala astaamo kuu sheegaya inaad mudnaanta siiso gawaarida kale ama inaad ka istaagto. waa inaad taxaddar badan muujisaa sida aad mar waliba aad ku samayso markaad gaariga istaajin rabto ama aad leexin rabto. dawaaradaha ama kala wareegyada qaar waxaa laga yaabaa inay waddada kuu furan tahay, sidaasi darteed waxaa lagaa doonayaa inaad xawliga gaarigaaga aad ka taxadirto. waa inaad gaariga ku leexin kartaa waddada dhankeeda kale adigoona gaariga istaajin. marnaba ha isku dayin in gaariga kaa horeeya uu waddada kuu sii sahmiyo, maxaa yeelay dadka baabuurta kaxeeya qaarkood waxay waddada fiiriyaan xilli dambe. u leexashada dhanka bidixda ah. markaad dhanka bidixda u leexanayso waa inaad haadadka iska fiirisaa sida sharciga ah. seedkaaga bidixdana waa inaad ku socotaa. signalka waa inaad dhanka bidixda u shidataa. waa inaad seedkaaga waqti hore gashaa. sidaasi oo kale xawliga gaariga waa inaad hoos u dhigtaa. waxaase laga yaabaa inaad gaariga ku sii kaxayso adigoo aanan waddada istaajinba. si waliba ha haatee waa inaad seedkaaga ku jirtaa ilaa aad ka bixiso dawaarka ama kala wareegga. ha ka bixin leenkaaga dhanka bidixda ah. signalka ha kuu shidhnaado ilaa aad waddada kale si sax ula qabsato. horay ugu sii socoshada dawaaradda. markaad doonayso inaad horay ugu sii socoto dawaaradda waa inaad haadadka iska fiirisaa sida sharciga ah, leenkaaga bidixdana ku socotaa. wax signal ah ha shidan, waa inaad taxaddar badan muujisaa. sidaasi oo kale waa inaad bilowdaa in xawliga gaariga uu yar yahay ama uu sax yahay. markaad waddada gasho waa inaad isticmaashaa nidaamkii MSM-ka ahaa. haadadka signalka oo aad shidanayso marka aad waddada labada leen dhexdooda aad marayso, iyo dhaqaajin adigoo waddada ka sii baxaya. haddaba waa inaad maskaxdaada ku haysaa in aad signalka shidato markaad ka sii baxayso waddada si ay gawaarida kale u ogaadaan dhankaad u socoto. inta badan astaamaha waddada lagu calaamadeeyey ayaa kuu sheegaya jihada aad doonayso inaad ku leexato. tusaale markaad horay u socoto oo kale. mararka qaar waxay waddada afaafka hore isugu beddeli kartaa laba waddo. sidaasi darteed waa inaad seedkaaga dhexda ah isku aadisaa waqti hore. marnaba ha isku shidan signalka, islamarkaana taxaddar badan muujisaa. waa inaad giirka ama marshada gaariga aad saxataa. laga yaabay adigoo aanan gaariga istaajinin inaad waddada dhaafto. si waliba ha ahaatee waa inaad ku socotaa seedkaaga. sidaasi oo kale waa inaad haadka dhanka bidixda iska egtaa islamarkaana shidataa signalka dhanka bidixda ah. signalku waa inuu kuu shidhnaadaa ilaa aad ka bixiso dawaarka ama kala wareegga. u leexashada dhanka midigta ah. markaad dhanka midigta u leexanayso waa inaad haadadka iska fiirisaa sida sharciga ah, leenka midigtana ku socotaa. signalka dhanka midigta u shido islamarkaana seedkaaga waqti hore aad gashaa. xawliga gaariga waa inaad hoos u dhigtaa. waxaase laga yaabaa adiga oo aan gaariga istaajinin inaad waddada sidaasi ku dhaafto. waa inaad ku sugnaataa seedkaaga midigta ah ilaa aad ka bixiso kala wareegga ama dawaaradda. sidaasi oo kale waa inaad taxaddar badan muujisaa adiga oo signalka dhanka bidixda u daaranaya markaad ka baxayso run aboutka ama kala wareegga. haddii aad doonayso inaad beddelato seedka aad ku socoto waa inaad haadka dhexe fiirisaa, kadibna haadka bidixda xiga inta aadan signalka shidan. waa inaad dhanka bidixda isku qaabaysaa markaasi.
nidaamka waddada kala wareegga looga baxo. markaad doonayso inaad isticmaasho kala wareegga ama dawaaradda waa inaad fahantaa qaabka waddada looga baxo ama saydadka loo isticmaalo. sida aad aragto ama aad qiyaasan karto kala wareegga wuxuu u samaysan yahay sida saacadda oo kale. qofkii doonaya inuu ka baxo dawaaradda inta aan la dhaafin 12 halka ay ku beegan tahay waa inuu isticmaalaa leenka bidixda ah. qofkii doonaya inuu ka baxana 12 wixii ka dambeeya waa inuu isticmaalaa dhanka midigta. haddii uu runabout-ka uu leeyahay 2 waddo oo keliya waa inaad raacdaa waddada markaasi kuu habboon. kala wareegyada qaarkood waxay leeyihiin leerarka baabuurta kala hagta si ay dadka mudnaanta u kala siiyaan. kala wareegyada ama dawaaradaha waxaa mararka qaar ka dhici kara shilal aad u foolxun. waxaa laga yaabaa darawallada qaarkood inay seedka beddeshaan xilli dambe. waa inaad taxaddar badan ka qabtaa arrintaasi maxaa yeelay gawaarida waaweyn kuma filna seedka ay ku socdaan sida looriga iyo kuwa xamuulka sida. sidaas darteed waa inaad gadaal ugu degtaa gawaaridaasi. mararka qaar baaskiilo ama dad farda saaran ayaa waddada isticmaali kara. haddaba waa inaad dadkaasi siisaa boos ku filan iyo waqti. taxaddar badanna waa inaad siisaa. sidaasi oo kale mararka qaar mootooyinka iyo baaskiilada inaad aragto way adag tahay markaad isticmaalayso kala wareegyada. laga yaabay in baabuurta badan gadaashood ay isku kaa qariyaan si kadis ahna mar dambe aad u aragto. sidaasi oo kale dadka waddada ka tilaabaya waa inaad taxaddar badan siisaa. dadka waddada ka tilaaba qaarkood waxay waddada kaga tilaabaan meel aan ku habboonayn in laga gooyo. sidaasi darteedna waa inaad taxaddar badan siisaa markaad waddada galayso iyo markaad ka baxaysaba. kala wareegyada yaryar. nidaamkii hore aan cashirkii hore ku soo baranay ayaad kula macaamiloonaysaa waddooyinkani. sidaasi oo kale waa inaad xawligaaga gaariga yaraysaa. dawaaradaha yaryar waa inaad mudnaanta siisaa gawaarida ka imaanaya dhanka midigta ah. markaad hubsato in gawaarida kaa horeeya ay ku dhaafeen waa inaad markaasi isku diyaarisaa inaad gaariga dhaqaajiso. markaad leexanayso waa inaad waddada halka dhexe kaga sugan tahay. haddii aad gaari kale jiidayso ama shay kale waa inaad dhanka bidixda u badan tahay. waa inaad ka fogaataa in baabuurka aad ku kala wareejiso dawaaradaha yaryar. waddooyinka qaar waxay leeyihiin 2 dawaaradood oo yaryar. waa inaad si gaargaar ah ula macaamilootaa waddooyinkaasi isla markaadna aad mudnaanta siisaa gawaarida ka imaanaysa dhanka midigta ah. waa inaad taxaddar badan ka muujisaa waddooyinka noocaasi oo kale ah. mararka qaar waxaad ku imaan kartaa buundo ama bridge ay ku badan tahay dawaaradaha. sidaasi darteed waa inaad mid waliba si gaargaar ah ula macaamilootaa.